Barasaabka gobolka Sool ay weheliyaan taliyayaasha qaybaha 17 iyo 7 ee ciidamada qaranka Somaliland ayaa kulamo gaar ah la yeeshay ardayadii shaqaqadu dhawaan ku dhexmartay deegaanka Aare Cadeeye ee gobolka Sool kuwaas ay kala hadleen fulinta go'aamadii xukuumaddu ka soo saartay shaqaqadaasi waxaana labada dhinac la guddoonsiiyay lacag loogu talagalay dadkii wax ku noqday shaqaqadaasi taliyaha qaybta 17aad gaashaanle sare Ismaaciil Cawaale Dolaal iyo sidoo kale barasaabka gobolka Sool Cabdi Khayre Dirir ayaa halkaasi ka soo jeediyay faa'iidada ay nabadu leedahay iyagoona ugu baaqay labada dhinacba inay qaataan nabadgelyo isla markaasna wax kasta ay kala tabanayaan lagu dhameeyo miiska wada hadalka halkan saaka waxaan isugu yeedhnay oo aanu kala siinay annagoo fulinayna go'aamadii ka soo baxay Aare Cadeeye shaqaqadii ka dhacday ninkii dhintay iyo nimankii dhaawacmay wixii loo kala xukumay ahaa aaskii iyo shashafadii fiqishini iyo reer cilmi kala gaadhay ayaanu saaka wixii loo kala xukumay siinay waa tallaabadii ugu horreysay ee la qaaday go'aamadii sidaa loo qaaday baana isu daba soconaysaa waxaa noogu xigaya haddii aan la yidhaha dhulkii sida sharci darrada loo xidhxidhay amba loo kala seeraystay amba loo calaamadsaday digreetadii uu soo saaray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amnigu kuna taariikhaysay 8 bisha oo ahayd maalintii khamiista ahayd waxayna ka kooban tahay 8 qodob oo haddii ilaahay ku rayo qusaysa qaybna ay gaar u tahay deegaanka Aare Cadeeye qaybna ay ka wada dhaxayso gobolka oo dhan haddii ilaahay ku rooyahay annagoo fulinayna waajibaadkii dawliga ahaa ee ay noo igmadeen wasiiradii hawsha ku jiray haddii ilaahay ku rooyahay waxaanu saaka halkan ku bixinay qarashkii ay xukumeen xukuumadda iyo salaadiinta maalintii khamiista ahayd labada beeloodna ay ku qanceen ee ahayd aaskii iyo shafadii dadkii dhaawac ahaa intaa waxaa daba raaci doona bismillaahi kariim oo ku daba xigi doona fulintii go'aamadii dambe ama go'aamada dhiman dhinaca kale mas'uuliyiinta maamulka gobolka Sool ay weheliyaan taliyayaasha qaybaha 7 iyo 17aad ee ciidamada qaranka Somaliland maayirka degmada iyo goori ayaa gaaray kaamamka ay ku sugan yihiin dadkii xooluhu ay ka dhamaadeen ee deegaanada Karbadaalay Dhiiri Goobasi Xawle iyo Ceelmidgaan kuwaas ay ku wacyigeliyeen inay ka guuraan maadaama ay ka soo baxday wareegta wasaaradda arrimaha guduhu ku mamnuucday deegaamaynta iyo kaamamka sharci darrada ee la asaaso la go'aansaday in dhulkaas aan magaalooyin cusub iyo deegaan dil hor leh aan lagu samaynin naqi weynooda alxamdulillah waxa markaa la ogaaday inay deegaanka dilayso meesha magaalooyin cusubna ku samaysmayaan hawlo kale oo la sheegi doonana ay ku samaysmeen ayaa la ogaaday aanu soconay fulintii digreetadii wasiirka arrimaha gudaha iyo amnigu uu qoray 8 bisha oo ka soo saaray gobolkan Sool deegaamadiisa lagu xakameynayay baabiinta deegaanka xoolo daaqeenka ah iyo meelaha mataqaanaa dhulka sharci darrada la calaamadsado iyo baabiinta kaamka jira ee abaartu samaysay saaka waxaanu marnay kaamka la yiraahdo waxaanu ka bilownay Dhiiri Goobo waxaanu soo qaadanay deegaankiisa iyo dadkiisa in la raro waxaanu ku xoojinay kaamka leeyahay mataqaanaa meesha Ceelmidgaan sidaas sideeg ayaanu isla qaadanay ku heshiinay waxaan ku xoojinay kaamka la yiraahdo Sii Xawle waxaan isla qaadanay in la raro isagana waa ku heshiinay waxaanu tagnay kaamka la yiraahdo Karbadaalay sidaas sideeg baan ku heshiinay shaqaduna way soconaysaa waxaan rajayn doonaa bismillaahi kariim labada casho ee soo socda iyo saddex casho ee soo socda in kaamkaas ay ku soo xoroodaan meelii aan ugu talagalnay ee aanu cayimnay ee magaalooyinka hore u jiray dadkuna waa ku qanacsan yihiin hay'adaha caalamiga iyo kuwa mataqaanaa local NGO-yadaaba iyagana waxaanu farana u sheegaynaa inay halka ugu hagaagan dadkii deegaamada la geeyay ee haday tahay Yogoori Samakaab iyo Aare Cadeeye inay ugu hagaagaan oo wixii ay siin jireen dadka halka lagu siiyo saasaan rajaynaynaa waxa kale oo inta noo raaca inaanu iyadana bilaabi doono wixii bari loo gaaro baabiintii dhulkii daaqsimeedka ahaa ee la iska seeraystay ama fuustooyinka la gashtay ama dhagxaanta la gashtay ee sharci darrada ah waxaanu ku soconaa anagu awaamirta qaranka Samiir Saciid Bulsha TV Laascanood